بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواad مع برنامجكena macalinka TV-ga oo ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. casharadii waxaan ku soo guday jirnay macalinka TV-ga. casharkeena ugu dambeeyay oo ahaa casharkii 19aad waxaanu kaga soo hadalnay go'aan qaadashada. run ahaantii go'aan qaadashadu waa qodob aad u muhiim ah. waxaan soo tilmaamnay nolosheena waxa saameeya waa go'aamada aynu qaadano. nolosha hadda aad ku jirtaa iyo meesha aad hadda taagan tahay waxa weeyaan go'aamaha soo qaadatay. sida daradeed go'aan sax ah inaad qaadataa waa qodob aad u muhiim ah. qodobkeena casharkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa arinta ka duwan. waxaanu kaga hadlaynaa mas'alo aad la isu weydiiyo. dad badan ay aad isu weydiiyaan. mas'aladaas waxa ay tahay sidee baan u xaqiijin karaa hadafkayga. waxa laga yaabaa inaad ahdaaf dejisay baa laga yaabaa ujeedooyin fara badan inaad leedahay baa laga yaabaa oo dejisatay laakiin inta badan mushkiladu waxay ka dhacdaa oo dadku intooda badan ka cawdaan waxa igu adag beeran fulintoodii baa igu adag. marka sidee baan u xaqiijin karaa hadafkayga, sidee baan u gaari karaa, waa maxay waxa la iga rabo inaan sameeyo haddii aan rabo hadafkayga inaan xaqiijiyo. hadaba casharkeena maanta arintaas ku saabsan yahay وانا عشركي لباتناد دawada hadaan hadaba arinta aynu ka hadalno waxa jira mabaadi' caama jira waxa jira rules qawaacid hadii aad raacdo oo ku dhaqanto la hubo in hadafkaaga aad gaarayso oo ku guuleysanayso. dawada adduunka uma joogno run ahaantii inaan iska ciyaarno. ujeedooyin badan baa laynoo abuuray. adduunka inta aad joogto wanaad ka faa'iideysataa. hadaf waa inaad yeelataa. hadaba hadafka xaqiijintiisu waa su'aal aad u muhiim ah. dawada hadii aad rabto hadafkaaga inaad gaadho, hadafka aad dejisay inaad xaqiijiso waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda. qodobka koowaad waxa weeyaan hadafka aad leedahay ee aad dejisaa waa inuu noqdaa hadaf cad oo xadidan waa inuu noqdaa. waxaan ula jeedaa hadafkaaga mugdiyaanu ka galin, madmadowyaanu ka galin, humagyaanu ka galin. hadafkaagu waa inuu cadaada. maanta haddaad tiraado hadafkaygu waxa weeyaan inaan guri dhisto, waxaan kula hadafkaagu ma cadda. marka tira sidee baan u caddayn su'aashu waxay tahay guri noocee dhisanaysa. guriyuhu way badan yihiin, guri noocee dhisanaysa. haddii aad tiraado waxaan dhisanayaa guri daaran dhisanayaa, waxa kule wali hadafkaagu ma cadda. oo waayo saanu cadayn waxaanu cadayn guriyaha daaradu way farbadan qaar ba 5 qola, qaar ba 6 qola, qaar ba 4. guriga dhisanayso waa mise qol. marka tirada guriga aan dhisanaya waa guri daar ah oo 4 qola, waxaan ku leeyahay wali hadafkaagu ma cadda. hadaa tira saanu cadayna waxa weeyaan su'aashu waxay tahay halkeed ka dhisanaysa. marka waxaad ku soo baxaya waxaan dhisanayaa guri daara oo 4 qola oo waxaan ka dhisanayaa xaafadaasi. inta marka tiraahdo ayaa waxaan ku leeyahay hadafkaagu cadi. hadafkaaga daawada waxa la rabaa inaad cadayso oo ka saarto wax kasta oo mugdi galinaya. marka tira baawur baan iibsanayaa ma cadda. waana tira baawur waxaan iibsanayaa magaciisu yahay ka indha cadde oo nambarkii ugu dambeeya noocaasa ayaan iibsanayaa. waana sida waa cadda marka qorshahaagu iyo hadafkaagu waa inuu cadaado. hadafkaagu markuu cadaado ayay maskaxdaadu kaga shaqaysinaysaa sida u qaban lahayd. haddaanu hadafku cadayn maskaxdu kaga shaqaysin mayso oo isma weydiinayso sidii loo gaari lahaa. laakiin san markaad u cadayso naftaada, aqligaaga markaad u cadayso hadafka lafdigiisa, markaasuu ka fakiraya sideed u gaari kartaa, maxaad ku gaari kartaa, goormaad gaari kartaa, muxuu u baahan yahay. su'aalahaas oo dhan aqligaa ku soo tuuraya. laakiin waxaas haddaana cadayn habayraad hadafka kuma dhaqaaqi kartid waana taagnaanaysa. waana mushkilada in badan oo dadka kamid ah haysta inay leeyihiin hadaf aan cadayn. marka la jaamacad baan galaya hadafkaagu ma cadda. waana taa jaamacad baan galaya, bachelor baan dhiganaya, qaybtaasaan galaya businesska oo waliba 3 sano baan galaya. businesskana waxaan sii baranayaa takhasuska gaarka ah management, human resource account. waana xadida hadafkaagu waana cadaada. dawada qodobka marka aad samayso
إذا هدفك قابك هو عديسو واحد أوجد بسها قضب كلابات بدو جد بسها قضب كلابات هو محين هدف كان أهدج شيء وإنه يهي هدف ضروري أين تصميصه وإنه يهي هدف هذا ربطه وين النقطة هدف مفترض حسين يسو أو ربطه أو ربطين يقبطه وين النقطة هدف كاجو هدية هدف عن ضروري أحين هدف عاد على سنة صون أضل هذا هدف أنا واحد ربع واحد ينقبته أيان ربع هذا الشيء كذا وتيوان ربع هدف كان مجالس وأين ترى هذا هدف كائن سميه واجب ومحيكو كل دويهن وحيكو كل دويهن مركا ترى هذا هدف كائن قبته واجب هدف كائن جاره واجب مركا ترى هذا محام ماشى كسارسة عذر دارك سماشود كسارسة وحكى صو عذر دار كون قلها ماشوا كبحيا العقل الآن ظروفها ماشوا كبحيا صبتوا محي واجب أسكا كدكت وذكارسة لكن سمك أترى هدف كاسو وان ربع وان شعل إن جاره وان حسينيا ومهم بقية وحمرك ترى هذا ولي عذر دار بعض هيستايو هذي وحير كوجود عن العقل هداد ويدو طرفير هتايكو قبصدان قيل بدو هلسا إن كحدو سيدا دراد وحل ولاية هداد رفتو هدف إن تحقيق الصوب وين الواجب سكاكدكتا واجب وان سكاكدكتا هاي ترى هذا وإن هلا وحا هدان وينا وحلقان markaad hadafka waajib iskaga dhigto tusaale aan ku siiyo waxa tiri meel fog baan deganahay baad oo gurigaygu magaaladu ka baxsan yahay duruufo adag bay haysto xagga maxaa baabuur waan nibsada way igu waajib markaad sidaa tiraahdo hadafka wadu halgamaysa sababtoo waajib iskaga dhigtay laakiin haddaad tiraahdo in magaaladan deganahayo baabuur baan xiisaynaya hadafka uma dhaqaaqaysid marka waxa la yiraahdaa haddaad hadaf tajiso committed waa inaad ku noqoto وأنا واجب كقدرته قطب كلا هالك راسنو هدف كل نفتي سواء أنا تعشى وأنا ضحيسين يسو وأنا نفط هذا ربطه واللي بقى وين ربطه هدي أنا نفط هذا هدف كان إني قاعد أنا ربين أم أنا حسينين ما قاعدسي تصنوا حقيقة اللي تشابيه ويان وسؤال شو واحد تحي دواي هاي أنا تشعل هاي مع هدف كده هاي سيدان كو أوجان كره هدف كان أنا تشعل هاي إني نفط هذا يسكو واجب سو هدف كان سيدا ما كده كره تصوا واحد إيمان الساعة markaad ogaato hadafkan maxaad ka faa'iideysaa waana isweydiisaa war hadafkan aad rabto inaad xaqiijiso maxaad ka faa'iideysaa fawaa'idiisa wax la waxaad ka faa'iideysaa taxaysa fawaa'idiisa marka aad taxdo maxaa ku soo baxaya hadafkaas inuu waajib kugu yahay in kale waa ku soo baxaysa markaad fawaa'idiisa taxdo waxa ku soo baxaya hadafka hadaad hesho naftaadu sida ugu raaxaysanayso sida u jeclaysanaysa ku soo baxaya marka waxa dawada la yiraahdaa hadafka marka aad qorto eed cadayso waa inaad qortaa maxad hadafkan ka faa'iideysa wax la yiraahdaa hadii waxa laga faa'iideeyo hadafku ay yar tahay naftu ma sameynayso laakiin naftu marka ogtay hadafka waxa wax laga faa'iideeyaa inuu aad u badan yahay iyada oo halgamaysa maskaxda ku dhaqaajinaysa tusaalahan ku siiyo waxa lagu yiri salaada duhurka jamaaca ku soo tukaa lagu yiri $1 baad helaysa naftaadu markay maxay oranaysaa $1 goor ay tagtay salaada jamaaca isma kala garanayso sababtu waa maxay faa'iido ay arkaysaa laakiin halkan su'aal baa ku jirta dadka intooda badan waxay ku qaldamaan faa'iidada yar kooban bay ku qaldanaan oo waxa laga yaabaa imka $1 waa faa'iido yar kooban faa'iidada weyn ee aakhirada jannada dadka qaar baa ilaaba tan markaas maskaxda la rabo inaad ku haysaana waa faa'iidada sida daraadeed ba waxa la yiri war aqligan uu qaldami karaayo faa'iido yar kooban oo waqti yar ku kooban ayaa laga yaabaa inuu ku habsaamee diintu way xigtaa diintu waa inay u sheegtaa faa'iidada rasmiga waxay tahay sida daraadeed baa lagu leeyahay fawaa'id iyo waxyaalaha diintu ku sheegtay maskaxda wanaad gelisaa haddaba dawada qodobka waxaan la jeednaa marka aad rabto hadaf inaad gaadho waa inaad taxdaa hadafkan maxaad ka faa'iideysaa bachelor baan rabaa inaan qaato businesska waa hadaf waan suudiisa maxaan ka faa'iideeyaa fawaa'ida taxaysa waxaan ka faa'iideeyaa markaan digri qaato shaqan ku helayaa koob dadkii baan isjeclaanayna hay waalidkaygii baa raaliga noqonaya saddex aqoontaydii baan muxuu ahay kor u kacaysa hay waxa kale inta ay dheer ummadii baan anfici kara waa fawaa'idii ba taxaysa waxa marka aad taxdo ay naftaadu dareento naftaadu iyaga u halgamaysa laakiin arinta waxa lagu daraa markaad fawaa'ida taxdo ee farab ay sida aad u taxdo waa inaad ku celcelisaa baa la yiraahdaa sababta ku celcelinta bay naftu la qabsanaysa marka dhowr jeer ku soo celceliso ee maskaxdu ku soo celceliso maskaxda waxaan fadhiisanaya kadibna maskaxdiiba waxa ka dhacaya hadafka inuu halganto
bal qodob kale lagu daray waxa la yiraahdaa shayga aad hadafka ka dhigatay ee naftaaduna jecelaysatay ee fawaa'idiisa aad taxday waa inaad takhayul ku samaysaa waa inaad ku riyootaa maskaxdaadu hay sawirataa iyadoo gaadhay hadafkii oo ay gaadhay oo fawaa'ida ay heshay ha sawirato waxa la yiraahdaa qofka hadduu sawirto fawaa'idu ka helaya hadafkiisa hadduu sawirto oo sawirkaasi ku soo noqdo waxa la qofkaasi wuxuu noqdaa qof aan la qaban karin oo hadafka uu gaadha sida dareedba waxa inta badan la yiraahdaa oo culimadu ay yiraahdaan ku takhasusay cilmu nafsigu qof dadka inta badan guuleysta markay guusha gaarayaan ee hadafta dejiyaan baa la yiraahdaa hadafka intaana gaarin way sii sawirtaan qofka hadafkiisu sii sawiranaya kadib wixii la kula sii macanaanaya kadib wad gaaraysa qodobkaasi waa qodobkii labaad dawada qodob saddexaad baa jiro aad u muhiim ah qodobka saddexaad waxa uu tilmaamayaa shaygan aad hadafka ka dhigatay ee aad cadaysay ee naftaadu ay jeclaatay ee isku waajibisay waxa loo baahan yahay inaad keligii u halgantaa loo baahan yahay focus inaad saartaa loo baahan yahay tarkiis inaad saarto oo isaga aad u halganto oo waxyaalaha kale ee ka leexinayo oo dhan had meel iska dhigto haddii maanta noloshaada hal hadaf aad halkaa soo dhigato oo tira hadafkaasi waa iga go'an inaan gaadho waxa hubaalay inaad gaadhiso laakiin sadadka intooda badan waxay ku dawaqaan intaasoo shay oo kale iyago samaynaya ayay rabaan hadafka inay gaadhaan طبعا waxa weeyaan maskaxdaadu way kala tagaysaa 100 meelood oo kala leexanaysa saa daraadeed waxa la yiraahdaa nolosha shayga ugu qiimaha badan leh waxa weeyaan qofku inuu helo hal hadaf oo aad u muhiim ah oo aad u weyn oo halgamo waxa arinta lagu daraa waxa la yiraahdaa ahdaafta waxa ugu qaalisan hadafku markuu uu leeyahay markuu adiga ku anfacayo oo ummadana uu anfacayo oo aakhiradaadana anfacayo hadafku inta saddexda shay haduu wato waxa la yiraahdaa waa hadafka ugu qiimaha badan leh bal waa hadafka qofka aan ka dhamaanin ee waligu uu halgamay tusaale aan ku siiyo hadafkaaga waxaad ka dhigatay inaad ummadda wax barto ee hadaf aad ka dhigatay hadafkaagu ka markuu yahay maxaa ku jira horta adiga uu ku anfacaya oo marka dadka wax barayso de lacagna waa lagu siinayaa maadiin baad ay ku anfacaya nafsiyanna uu ku anfacaya dad soo saaraysa taas waa qodob dadkana uu anfacayaayo doomad baad wax baraysa oo cid kale uu anfacayaayo wadi wax barashay dadka wax baraya waxa kale laga yaabaa aakhirana inuu ku anfaco haddii niyadaadu wanaagsan tahay oo ulajeedadaadu fiican tahayna aakhirana ajr baad ku helaysaa marka hadafku markuu kaasoo kale yahay baa la yiraahdaa waa hadafka ugu qaalisan baa la yiraahdaa kaba soo dhakhtar baata dhakhtarnimada adiga way ku anfacaysaa lacag baad ku helaysaa ummadana way anfacaysaa niyadaadu haddii wanaagsan tahayna aakhirana way ku anfacaysaa marka waxa la yiraahdaa hadafka marka laga sheekeynayo hadafka ugu qiimaha badan waxa weeyaan hadafka adigana ku anfacaya dadkana anfacaya aakhiradana wax ka taraya bal hadan si kala u dhigaa waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waxa la isweydiiyaa goorma la oran kara qofkaasi waqtigiisa sida ugu fiicneed ayuu u isticmaalay goorma la oran kara waxa iraahdaan marka iswaafaqan dhowr shay marka iswaafaqan qofkaasi wuxuu jecel yahay iyo shaqadu ka shaqeeyo iyo wuxuu bartay iyo waxa uu qabto waqtigiisa fariqada intaas haday iswaafaqan wax la qofkaasi waqtigiisa ka faa'iiday tusaale ku siiyo waxa jeceshahay oo naftaadu hay ka heshaa dhakhtarnimada koow dhakhtarnimadii baad baratay oo aqoon aad ku yeelatay waa laba dhakhtarnimada laftigeedii ayaa shaqo ku heshay oo dhakhtar baad waa saddex dhakhtarnimada laftigeedii ayaa waqtigaaga firaaqada ah dadka bilaashad ugu dawaysaa oo dadka aad dawo bilaash iyo dhakhtarnimo bilaashad ku siisaa afar shay baa isku ka waafaqay waxa jecleedo dhakhtarnimo ah waxbarashadaada oo dhakhtarnimo ah shaqadaada oo dhakhtarnimo ah iyo dadka waxaad ku caawinaysaa waqtiga firaaqada oo dhakhtarnimo ah waxa qofka uu afartaas la helo oo marka uu focus ka saar u halgamo qofkaasi wuxuu gaaraa meesha ugu sareysu gaaraa la yiraahdaa laakiin saadad kala tagto tusaale ahaan oo kale waxaad jeceshay engineer inaad dhigato nafta engineering ka heshaa markaas waxa baratay business baad baratay haye shaqadaad ka shaqeysana waa maxay shaqadaad ka shaqeysana waa macallinimo tii way kala duwan yihiin baa lagu leeyahay yaani intaasoo midaba uu kala qaybsamaysa markaas oo kale wax badan ma soo kordhinaysa si kala hanu dhigo wax la yiraahdo dadka bani aadamka marka laga hadlaayo dadku waa afar qaybood waxa jira qof waxaan uu qabanaya isagana anfacaya dadkana anfacaya waxaan had qabanaysa adigana way ku anfacayaan dadkana way ku anfacayaan qofka maxaa la yiraahdaa one situation buu ku nooli xaalad fiican buu ku nool yahay oo isaguna naftiisu waa anfacaya oo qofka macallinka ee macallimihiisa isagu isku anfacaya lacagta ku qaadanaya dadkina waa anfacayaayo waa ka wax baraya waxa jira qofka ka duwan
وما حي وحلا one lose situation ويان وما قف كازي قف كنوحو كشقينا يا أما هدف كيسو يساقو أنفعيا لكن صدقك ما أنفعايا وكاسو وما حي نكان كان صداقة إلا أكتب بدن هنتي dadka ka qaadaya doorta isagu is anfacaya lacag waa kan helaya laakiin saxaaladiisu waa maxay dadkii ma anfacayo waa lose weyn dadkii ma anfacayo mid ka duwan baa isagu jira oo waa maxay waxa weeyaan kaasi waa qof isagu naftiisii ma anfacayo laakiin dadku anfacaya waa lose one situation baa la yiraahdaa adigu isma anfacaysid dadkii laakiin waa anfacaysa oo kaasi waa kuma waa qofkan dadka u shaqeynaya qof baad arkaysaa dadka u shaqeynaya wax volunteer ahoo muxuu ahaayay bilaash ku shaqeynaya umadu anfacaya laakiin qofkiiba naftiisa ilaabaya reerkiisa ilaabaya caruurtiisa ilaabaya qofkaasi xaaladdu ku soo ma fiicna oo waa maxay naftiisa uu lus garaynaya dadkina waa anfacaya taana la maro qofka ka duwan ma jira oo waa maxay waa lose situation baa la yiraahdaa qof isaguna isma anfacayo dadkana ma anfacayo oo waa qofkan de naftiisana aanu fiicnayn ee laga yaabo inaanu salaad diintiina ku fiicnayn wax adduunna aanu ka shaqeynin adduunya aakhira wax anfacayaba kama shaqeynayo at the same time waa maxay dadkiina dib u geysanaya marka qofka dadkiina uu dhibaya isna uu isdhibaya xaaladaasina waa xaalad aad u liidata marka waxa ugu fiican baa la yiraahdaa markuu qofku ku jiro xaaladda ah one situation aniguna han guuleysto dadkuna hay la guuleystaan aniguna naftada anfaco dadkana aan anfaco haddaba dawada qodobka haddan halka kaga baxno waa qodobka saddexaad waxa jira isaguna qodob kala afaraad oo qodobka afaraad waa maxay hadafkan aad dejisay waa inaad u samaysaa time waa inaad u samaysaa waqti waa inaad u samaysaa goormaad bilaawaysaa goormaad dhamaynaysaa waa inaad cad qodobkaasi waa muhiim inaad labada waqti cad yihiin waa muhiim sababtu waa maxay de goorma la ogaanaya waxa inaad bilowday goorma la ogaanaya se inaad dhamaysay sidee lagu la xisaabtami karaa naftaadu sidee kula xisaabtami kartaa waa inaad naftaada u sheegtaa waqtigaas ayaa waxa bilaawaya waqtigaasna waan dhamaynaya marka time inaad u samayso cad waa qodob aad u muhiim ah qodobka shanaad ee inuu gudubno qodobka shanaad daawada waa maxay qodobka shanaad waxa weeyaan hadafkan aad dejisatay tiri waan gaadhaya waa inuu waafaqaa qiyamkaaga waa inuu waafaqaa waxyaalaha aad nolosha ku qiimeynayso waa inuu waafaqaa waxa kale oo isna muhiim ah waa inuu ku yahay hadafkan in badan baa waxa dhacda qofka hadaf buu xadidaya hadaf cad buu samaysanaya markaasuu hadafkiisa oranaya u halgan oo sameey buu oranaya markaas haddana wuxuu arkayaa hadafkii uu sameyn karin u dhaqaaq buu oranaya haddana uu ka istaagaya haddana u dhaqaaq uu ka istaanaya sababtu waa maxay sababtu waxay tahay sheekho waxa weeyaan hadafkan aad rabto inaad gaadho naftaadii baan ogolay naftaada gudaheedii baa dagaal ku jirta loolan baa wuxuu ka dhex jiraa naftaada gudaheeda qayb kamid ah naftaadu waxa leedahay samee qaybna way diidantay ilaa had loolanka ka saarto hadafka ma gaadhi kartid oo loolanka maxaa keenay loolanka waxa keenay hadafkan aad rabto inaad gaadho ayaa waxa laga yaabaa inuu ka soo horjeedo waxa ay naftaadu si gaar ah u qiimayso inuu ka soo horjeedo laga yaabaa marka xaaladu waday sidaa tahay oo iskhilaafaan waxa nolosha ku qiimayso iyo Allahumma salli ala Muhammad hadafka aad rabto inaad gaadho haday iskhilaafaan tusaale aan ku siiyo waxaad rabtaa inaad hoggaanka ka qayb qaadato xisbi inaad ka qayb qaadato kaasaad rabtaa oo xisbiyada aad gasho waa hadaf aad leedahay laakiin naftaada waxa la qiimkeed aaminsan tahay in naftaada aaminsan tahay maxaa kamid ah waxa kamid ah waxa la aaminsan tahay inaad iska ilaaliso corruption inaad iska ilaaliso qabyaalada inaad iska ilaaliso waxa la naftaada aaminsan tahay markaad aragto adigoo hadafkaaga u socda laakiin se hadafkii aad u socotay haddana ku dhaqmaaya qabyaalad iyo corruption ku dhaqmaaya maxaa imanaya waxa iska hor imanaya hadafkii aad u socotay iyo naftaadu waxay dhaqan u ahaa ay nolosha ku qiimeynaysaa iska hor imanaya adigoo waxaad arkaysaa qabyaaladna ku dhaqmaaya hadafkaagiina u socda loolan baa ku galaya maalin kasta waxaad oranaysaa waxba xisbiga ku biiran maalinta ma ka qayb galin xisbiga maxay kulankiisa sababtu waa maxay naftaadiiba waxa isweydiinaysaa war wixii noloshaadu qiimaha ku lahaa iyo maxaa iska hor yimi hadafkaaga iska hor yimi saradeed waxa la iraahdaa hadafkaaga waa inaanu ka hor iman waxa nolosha ku qiimeynayso haduu hadafkaagu ka hor imaado nolosha waxaad ku qiimeyso waxa ila adiga ku ah qiyamka ku ahdu ka hor imaadana ma gaari kartid sababtoo naftaadiiba soo celinaysa oo markaas ku diidaysa qodob kale halkan la socda waxa la yiraahdaa hadafkaaga waa inaanay ka hor iman adiga mawaahibtaada
وحلا مواهبتها أقول هذا هي هدف كاجوانا يسوافقان هذا يسوافق ويانا يلفت جدوا مشكلة تصالح عن قصيه waxaad rabtaa inaad engineering dhigataad rabtaa engineer hadafkaagu waa engineering aad gasho laakiin naftaada markaad eegto naftaada waxaad ogaatay inaanay ku fiicnayn physics iyo xisaabta kuma fiicna mawaahibtaada maaha maxaa imanaya hadafkii aad u socotay iyo maxaa iska hor yimi naftaada gudaheeda wixii ku jiray iyo wax mawaahibta u leh baa iska hor imanaya xisaabta ingiriiska kuma fiicnad engineering muxuu u baahan yahay xisaab physics buu u baahan yahay kuma fiicnad waa iska hor imanaya marka waxa laga yaabaa markaad wax barashada bilowdaba inaad hadafka gaari kari weyda bal waxa laga yaabaa inaad adigoo dhaxda marinaya iskaga hadha laga yaabaa oo wixii baa kugu adkaanaya culays bay kugu noqonaysaa haddii tahay sida ka duwantay xaaladdu oo naftaada markaad eegtay mawhibaha aad u leedahay xisaabtii ingiriisku aad ugu fiican tahay engineerna aad doorato hadaf ka dhigato markii waad gaaraysaa sababtu waa maxay waxa iswaafaqay waxaad hibada u lahayd iyo hadafkaagiiba iswaafaqay haddii iswaafaqaana waad gaari kartaa qodob kale halkan ku jira waxyaalaha kugu muhiimsan iyo hadday iskhilaafaan hadafkaaguna hadafka ma gaari kartid sababtuna waxay tahay naftaadu markaas waxay dareemaysaa wixii muhiimka ah inay ka tagtay dareemaysaa wixii muhiimka u ah inay ka tagtay ayay dareemaysaa marka nafteeda daaqilka naftaada gudaheedii ay dagaal ka dhex dhacayaan marka wax muhiim ah wada la ilaahdaa hadafka markaad rabto inaad gaadho hadafkaagaasi waa inuu waafaqsan yahay qiyamkaad aaminsan tahay mawaahibtaada waa inuu waafaqsan yahay وأنا وافقسان يا وحلا كوجو مهمسان إهربتنا الحقيقة أنت مركو وافقسان يا هدفك واتجاري كرتا قلبك حتى بهال كانوا وجود بين عوام حي وقلبك اللي حاد ويا أنت مركا أساس ميسو قلبك اللي حاد بدو جود بيسا أو سوق عوام حي قلبك نروح كلها هي وإن هذه سام معلومات كوساب صن هدف كان أضربتين تجارو وقلبك سوا مهم بابور بضربتين دي بيساتو واحد هدف كيجوا محب بابور إنه بيساتو واللي بس سنة gudihii aan ku iibsado oo sanadkaasi markuu dhamaado bishiisa koowaad waa in baabuurka haysaabaa tir waaya baabuurka wad xadiidoo tir waxa tir baabuur in dhacada markaad halka xaaladaadu marayso maxaad isweydiinaysaa qodobkan wuxuu ku leeyahay wax la wixii macluumaad ay ku saabsan inaad baabuurka hesho raadi waana suuqa gashaa aad warasta baabuurka imisa la siiya halkeen laga helayaa imisuu ku soo dagaa ilan bariskiisu ugu dambeeyay muxuu maraya war oo dhan oo ku saabsan maxay baabuurka wanaad raadisaa hadafka inaad raadiso macluumaadkiisu waa shay aad u muhiim ah macluumaadka marka aad soo hesho waa qodobka lixaad qodobka toddobaad baad u gudbaysaa oo qodobkan toddobaad muxuu leeyahay waa inaad xaaladaada eegtaa xaaladaada qiimeynaysaa anuu halkan ku sugana baabuurku waan soo ogaaday macluumaadkiisa baabuurka waxa la yiraahdaa $4,000 baa la siinaya waana modelkii ugu dambeeyay macluumaadka dhan baad soo heshay hadafkaaguna waa baabuur maxaa isweydiinaysaa xaaladan ku suganay waa maxay xaaladda maxaa ku soo bixi kara waxaad oran kartaa waan shaqeeyayo laakiin shaqadan hayo lacag badan kuma qaato ayaa ku soo bixi karta naftaada qiimeynaysa waxaad isweydiinaysaa marka xaaladda aad ku sugantay markaad eegto maxaa bishiiba dhigi kartaa waxa ku soo bixi kara $200 baan dhigi karaa bishii marka xaaladaadu dhan baad eegaysaa xaaladaada markaad qiimeyso xagga dhaqaalaha shaqadaada haysato waxaas oo dhan markaad wada qiimeyso ayaa qodobka ka ku xiga u gudbaysaa qodobka toddobaad marka aad sameyso oo ah xaaladda aad ku jirto inaad qiimeyso oo marka ay ku soo baxdo dhaqaalaha walku marayo waxaad u gudbaysaa qodobka 8 qodobka 8 muxuu ku leeyahay waa inaad eegtaa hadafkan aad rabto inaad gaadho cid alla cid kugu caawin karta ee islada way kugu caawinayaan وين تراديسا الله عدا أصله وكقيب قادن كرتا وين تشيكتا waxay noqon karaan qof hadafan hore u gaaray buu noqon karaa hadafkan aad ka halayso qof hore u gaaray uu noqon karaa wuxuu noqon karaa qof hadafka aad rabto inaad gaadho qof kugu caawinaya xaqii maadiga lacagtu ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa qof aad isleedahay motivation buu ku siinaya uu ku dhiirigelinaya ayuu noqon karaa ka marka aad hesho xaalad hesho cid alla cid kugu taageeraysay ay maxaad u gudbaysaa qodobka 9aad baad u gudbaysaa qodobka 9aad waa maxay waxaad eegaysaa oo isweydiinaysaa hadafkan inaan gaadho maxay iga hortaagan hadafkan inaan gaadho maxay iga hortaagan waxaad markaa taxaysaa waxa la waxa ka hortaagan tusaaleena hadda hore hadaan soo qaadano baabuur baad rabtaa inaad iibsato waaya waxa tir bishii waxaan dhigi karaa $200 sanadkii maxay noqonaysaa $2,400 baabuurkana maxay nidhi waa $4,000 aqalada ku hortaagan maxaa ku hortaagan waxay hortaagan inta ka dhiman $2,400 inaan helo ayaa hortaagan inta sidaan u heli lahaa waana ka fakara
waxa kale hortaagan waxa kale ku hortaagan baad oran kartaa ma haysto leesankii baaburkan ku wadi lahaa taasina mid kale ku hortaagan waxa kale oran kartaa waxay hortaagan baaburka ma ka xinaqaan arqalada ku hortaagan oo dhan oo isla hadafka inaad gaadhay ka hortaagayna waa taxaysa qodobka marka aad samayso ay waxaad u gudbisaa qodobka 10aad baad u gudbisaa qodobkan muxuu ku oranayaa qodobkan wax kala sameyn meesid waxaad dejinaysaa hadafka sidaad u gaari lahayd hadafka sidaad u gaari lahayd baad dejinaysaa oo maxaad oranaysaa wasiiladii ku gaarsiin lahayd hadafka ayaad sheegaysaa koob waxaad oranaysaa wasiilada koowaad ay gaarsiinaysaa waa maxay hadafkan inaan baabuur helo maxay gaarsiinaya waxay gaarsiinaya maadaama xaaladeedii aan ogaaday 200 oo kaliya inaan dhigi karo qodobka koowaad ay gaarsiin karo waa maxay bishiiba $200 inaan dhigo qodobka koowaad waxa kale oo oranaysaa arqaladahayga ma kan taxliiliyo waxaalaha caqabaadkii hortaagan ma kan eegayna waxa kamid ah lacagta inta dhiman inaan helo ayaa loo baahan yahay marka maxaad oranaysaa waxa kale oo gaarsiin kara lacagta dhiman halkii aan ka heli lahaa marka waxa taxaysaa meel kasta oo isleedahay lacagta ka dhiman 2400 lacagta ka dhiman meel kasta oo isleedahay wad ka heli kartaa eed sheegaysa waxaad oranaysaa waxaan raadinayaa shaqo kale si aan u buuxiyo inta lacagta ka dhiman waxaan raadinayaa qof kale oo iga caawiya lacagta inuu siiyo waxaan raadinayaa hagbad inaan galo marka waxa taxaysaa wax kasta oo ka caawinaya inaad hadafka gaadho qodobka marka taxda waxa raacinaysaa oo caqabaadka taxda maxaa kamid aha waxa kamid aha inaanad aqoonin sida baaburka loo kaxeeyo maxaad oranaysaa waa inaan bilaawaa baaburka sidii loo kaxeeyo barashadiisa waxa kale waxa la taxda caqabaadka kamid aha inaad leesankii haysan maxaad oranaysaa waa inaan raadiyaa aan qaataa leesankii baaburka lagu kaxeeyo inta marka taxdo oo qodobku wuxuu sheegayaa oo kaliya hadafka sida aad ku gaadhi lahayd adigoo ka duulaya caqabadihi aad sheegtay adigoo oo ka duulaya xaaladii aad analyze garayso tiri waan ku jiraado ka duulaya waa inaad taxdaa shay kasta waxaad ku gaadhiso inta markaad samayso ay waxaad u gudbisaa qodobka 12aad oo waa maxay shay kasta oo tiri waa inaan waxa sameeyaa action kasta oo aad qortay waxaad sheegaysaa waqtiga aad bilaawayso iyo waqtiga aad dhamaynayso intaas laga waa inaad time baad sheegaysaa goormaan bilaawaya goormaan dhamaynaya qodobka 12aad marka aad dhamayso waxaad u gudbisaa qodobka 12aad qodobka 12aad waa maxay waxa liihaad qortay aad tiri waan ku gaaraya hadafkayga ee ahaa 200 waa inaan dhigtaa ee ahaa lacagta inta harsan waa inaan ka raadiyaa dad kale ka raadiyaa ama shaqo kale aan ka raadiyaa waxa liisaad u taxday aad qortay ay waxaad isweydiinaysaa keeba ugu muhiimsan ee ay tahay imika inaan sameeyo sida u kala muhiimsan baad u kala qoraysaa oo sida kolba kugu muhiimsan bishan keeba kugu muhiimsan aad qabanaysaa bisha ku xigta keebaad qabanaysaa bisha ku xigta keebaad qabanaysaa waxaad u kala qoraysaa sida ugu muhiimsan yihiin inta marka aad samayso ee qodobka ugu dambeeya ee ku soo khatimayno aad u gudbaysaa oo qodobkaasi waa maxay waa fulin hadda waa fulinaysa markaas aad fulinaysa waxa la iraahdaa hadaad rabto hadaf inaad gaadho bartaad fadhida intaanad ka kicin waa inaad qabataa wax kamida waxa la ku gaarsiin lahaa hadafka adoo bartaaga kicin waa inaad wax ku dhaqaaqdaa ama telefoon ku qaraa qof wax kaaga xidhnaayeen ama wax kala qabo waa inaad markaaba bilowdaa bala wax la iraahdaa hadaad rabto hadafkaaga inaad gaadho isku day maalin kasta 10 sentimitir inaad ku sii dhawaato hadaad maalin kasta isku daydo hadafkaaga 10 sentimitir inaad ku sii dhawaato aakhirka waad gaadhaysaa marka daawada waxa muhiim ah marka laga sheekeynayo ay hadafka dejintiisa iyo fulintiisa waxa la iraahdaa dadku 4 qaybood qof hadafka intuu dejiyo ayaan waxba ka qabanba oo iska fadhiya kaasi meel ma gaadho qofna intuu hadafka dejiyo ayuu intuu bilaawo dhaxda markuu marinayo ka hada kaasina isaguna guushii weyneed ma gaadhay bartaas ay ku nastaa uu kaga istaagtaa qof saddexaad baa jiro hadafka markuu dejiyo uu wadaayo waliba wuxuu isku dayaa dadka isaga la midka caadiga siday ku gaadhaan inuu ku gaadho qofkaasi waxa la yiraahdaa uu gaadhaa laakiin waqti bay ku qaadataa qof afraad baa jira waxna qofkaasi hadafka markuu dejiyo wuxuu isku dayaa intaasoo action oo kala duwan inuu sameeyo soo hadafka u gaadho intaasoo dhinac buu kaga imaadaa hadafka sida u gaadhi lahaa waxa la yiraahdaa qofkaasi waa qofka ugu muhiimsan ee sida dhaqsaha badan leh ku gaadha hadafkaaga hadaba ka baabuurka hadaan ku soo qaato hadaad isku daydo meel kasta oo lacag aad ka helayso inaad ka raadiso waxa isku dayda hagbad inaad gasho
haddana waxaad raadisay qof inaad lacag weydiisato haddana waxaad isku dayday inaad qaraabadaadii la hadasho haddana waxaad isku dayday inaad si kasta oo lacagaad ku heliso oo xalaala aad lacag ku keento oo intaasoo dhinac baad hadafkaaga kaga timi haddii aad sidaas samayso hadafkaa waad gaadhaysaa baabuurka aad sheegto daawada waxaan kusoo khatimaynaa hadafka waad gaadhi kartaa laakiinse maskaxdaada ku xidhanta haddii maskaxdaadu aaminsatay inaanay gaadhi kareen ma gaadhi karto haddii laakiinse ay aaminsatay inay gaadhi karto way gaadhaysaa laakiinse maxaa loo baahan yahay isla waqtigaasi action samee waanad gaadhaysaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay